السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال كلنتي وعن وناكسن مركزتا iyo meel kastood na daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamij cusub oo ay toddobaadkani marti inoogu tahay qoraarooda cawil cilmi oo kamid ah haweenka gobolka Sanaag rooda soo dhaw marka hore qaali warsame kaafi wana ku dhawahay barnaamijkan wana ku maasantahay sida sharafta leh adigu marti qaaday barnaamijkan rooda waxaad kamid tahay haweenka gobolka Sanaag waxaadna tahay qoraa iyo sidoo kale la taliyo nololeed marka hore taariikhdaada oo kooban bal nooga warbixi walaal taariikhdayda oo kooban anigu waxaan ahay inaan ku dhalatay gobolka Sanaag sidoo kale waan ku barbaaray ma sha Allah waxbarashadeedii dugsigeygii dhexe iyo kii sare iyo ma taqaanay heer adigu shaqo oo nimika ku suganaay waxaan ku suganaay gobolka Sanaag ma taqaanay waxaan ahay inta badan dhalinyarada jecel horumarka dhalinyarada inta badan garab taagan oo ma taqaanay inta badan waqtigeeda siisay inta badan dhalinyarada si ay u dhiirigelin lahayd korna ay u qaadi lahayd marka walaal taariikhdayda oo kooban intaasaan ku soo koobi lahaa maadaama tahay rooda dhiirigeliye haweenku waa laf dhabarta bulshada ka rood ahaan maxaa lagu la oran karaa baa kugu kalifay walaal horta waxa igu kalifay ma taqaanay dhiirigelintan ama arrimaha bulshada aan ka shaqeynayo labo way igu kalifay marka koowaad labadaasi midda koowaad waxa weeye waxay ahayd markii ugu horeysay talantigayga ama hibadayda inaan ma taqaanay dhalinyaro soo saaro ama aan dhiirigeliyo ama aan inta badan garab istaago dhalinyarada si ay u horumar lahaayeen ama ay u guuleysan lahaayeen sidoo kale waxay ku kalifay iyaduna dhiirigelinta markaan arkay bulshadeenu inta badan inay u baahan yihiin dhiirigelin ama wax garab istaaga oo dhalinyaradu inta badan waxyaabaha mar walba hoos u dhigaya oo ma taqaanay mar walba dhalinyarada daciifinaya oo wadahooda qarinaya markaan arkay inay tahay dhiirigelin la'aan ayaa waxay ku kalifay markaas waxay ku kalifay inaan dhalinyarada dhiirigeliyo korna aan u soo qaado in fara badan aan garab istaago si ay dhalinyaradu u horumari lahaayeen meelo fara badan ay u gaadhi lahaayeen oo qof kasta oo dhalinyaro ah halka uu ku haminayo halka uu doonayo inuu gaadho sidoo u gaadhi lahaa taana kaliya wuxuu ku gaari karayaa marka la dhiirigeliyo marka waxa weeye sababtaas ay ugu kaliftay inaan dhalinyarada dhiirigeliyo markastana aan jeclaado inay dhalinyaradu horumaraan oo guuleystaan intaad ku guda jirtay arrimahaaga bulshada ma jiraan wax caqabad oo aad kala kulantay ama la oran karo way ku hor istaagay caqabado badan warsame way jireen oo aan kala kulmay waxa dhacday markii ugu horeysay arrimahan dhiirigelinta aan bilaabay oo aan hadda ku guda jiro waxa ma taqaanay dhacay markii ugu horeysay arrimii igu adka ama ma taqaanay runtii aadka ii saameeyay waxa kamid ahaa markaan dhalinyaradii jeclaystay inaan dhiirigeliyo ama aan soo saaro in fara badan dadku ay igu yeeseen oo dhahan adoo inana sidee baad isugu dayi kartaa inaad dad soo saarto ama bulshada wax uga bedesho dad fara badan meelo fara badan gaaray ma taqaanay in fara badan aqoon leh in fara badan ma taqaanay bulshada wax ku soo kordhinaya ayaanba ma taqaanay gaadintaas marka sidee baad isugu dayi kartaa rooday ama aad u gaari kartaa in fara badan waliba dad fara badan oo aan ka tala qaadan jiray in fara badan aan jeclaa inay horumariyaan oo kor u qaadaan markay hadallada in fara badan maskaxdayda ku soo noqnoqotay haddana markasta waxaan u taagnaa dhalinyarada taa waxaan ka raaci jiray wanaagun baan ka raaci jiray laakiinse in fara badan ma taqaanay caqabadihii igu xunxuma ee igu waaweynaa bulshada ayay igaga yimaadeen waan gartay rooda maxaad kula talin lahayd haweenka dhigaaga ah ee gobolka Sanaag waxaan kula talin lahaa qof kasti waliba haween kaliya maaha dhalinyarada oo dhan rag iyo dumar waxaan kula talin lahaa inuu qof kasti awoodihiisa muujiyo qof kasti uu isku dayo oo ma taqaanay uu isku dayo hibada iyo talentiga uu leeyahay sidoo soo bandhigi lahaa taana waa markuu garab helo waxa la yiraahdaa farasku ma taqaanay marka usha lagu dhufto ayuu dheereeya marka waxaan oran lahaa dhalinyarada ma taqaanay rag iyo dumarba waan kula talin lahaa inay horumaraan oo ma taqaanay horumarkoodana kaliya waxa ma taqaanay u fududeyn kara markay dhiirigelin helaan waalid ha noqoto asxaab ha noqoto qof kasta oo nolosha ma taqaanay isku dayo inuu wax ku soo kordhiyo waxaan jeclaan lahaa in la garab istaago waxna la qabto xitaa hadaan qofka garab istaagi karayn ama aanad waxba la qaban karayn halka ka sii wad kaliya waa kelmad aad u qaaliya marka taasaan kula talin lahaa siiba hablaana waxaan kula talin lahaa inay iyagu dadaalaan in fara badan hibadooda muujiyaan habluhu waa laf dhabarta bulshada marka waxa weeye in fara badan waxyaabo ay ku fiican yihiin dhinac kasta inay muujiyaan oo ma taqaanaa ay bulshada la wadaagaan oo ay u soo bandhigaan ayaan kula talin lahaa haweenku
inta badan waxay caqabad kala kulmaan dhanka family-ga ama hooyaha noqoto ama aabaha noqoto adigu ma jiraan wax caqabadaad kala kulantay xagga family-ga caqabado fara badan way jiraan oo inta badan habluhu ay kala kulmaan dhinaca family-ga laakiinse haddana ma taqaanay way jireen caqabado aan xagga family-ga kala kulmay laakiinse inta badan shakhsiga mar walba iga rab taagan hooyo ahaa markasta ila jeclaa inaan guuleysto ama aan horumaro laakiinse haddana dhinaca ma taqaanay family-ga ehelka way jiraan caqabado aan kala kulmay balse laakiinse kuwa aan u garab jabay ama ma taqaanay aan isiri halka ku jooji hayaankaagii ma yahay rooda waxaa jira haween badan صح oo soo dhameeyay jaamacadaha kala duwan ama dalka gudihiisa ama dibadiisa ba ha noqoto صح isla markaana halkii hawlahooda shaqo gali lahaayeen markii la guursaday صح ونيت jab ku yimo oo halka kaga fadhiista صح maxaad kuwa kula talin horta warsamow waxa weeye markaynu horta aan nahay haween waxa weeye ma taqaanay inta badan habluhu waxay yiraahdaan inta badan marka ma taqaanay ay heerka guri ay soo gaaraan oo inantu ay guri yeelato waxay ka fikirtaa iskuma wadi kartid hawlihii shaqo ee ma taqaanay qabanaysay ama ha noqoto dhinac waxbarasho ama ha noqoto dhinac shaqooyin kale ay waday iyo ma taqaanay shaqadaadii guriga taasna hablo badan waan ku waafaqsanahay anigu oo waxaan aaminsanahay qofku inaanu shaqooyin kale ku wadi karin balse laakiinse asaaska ama lafdhabarta halka ugu muhiimsani waa in ma taqaanay bulshada waxa la yiraahdaa warsamo tusaale jiro tusaalahaas waxa weeye inaad warshad soo saarto iyo inaad jiil soo saarto iyo ma haboon waxa weeye waxaan aaminsanahay in warshad ma taqaanay la dhiso ma xoog uma wanaagsana sababtoo ah bini'aadanku iyaga warshada dhisa marka horta waa inaynu helnaa hablaha hamigii iyo higsiga nolosha kala haydeen markii guursaday ka gaabinina haye kullayba waxa weeye halka kaliya ay nantu ma taqaanay marka loo baahan yahay xooga saarto waa inay soo saarto ubad bulshada wax ku soo kordhiya ubad hogaamiyayaal ubad akhlaaq wanaagsan ubad dhaqankooda wanaagsan yahay taana waxay ku soo saari kartaa markii kaliya ubadkii ay xooga saarto oo ay noqoto marwo guri lagu soo hagaago marka iyadoo laga yaabo in hablo badan taa ay ugu waafiqi waayaan ama ay taa ka caroodaan balse laakiinse taasi waa muhiimadeena sababtoo ah diinteena islaamka bayna faraysa inay nantu markasta noqoto mid guriga ku nagaata ma ogtahay marka ay noqoto hooyo ama ay marwo noqoto marka taas waa mid aan kula talin lahaa in ma taqaanay ubadka kor loo qaado oo la soo saaro oo lala dadaalo in badanna dhalinyarada halka iga daawanayso waan ugu bashaareyn lahaa oo ma taqaanay dhalinyarada ma taqaanay waayeelka oo hooyooyinka waxaan ugu bashaareyn lahaa oo aan halka ugu sheegi lahaa inaan soo wado ma taqaanay barnaamijyo ku saabsan qoyska oo ma taqaanay arrimaha ka hadlaya oo in badan ay qoysaska Soomaaliyeed noqdeen kuwa burburay ama ma taqaanay aan ahayn qoysaskii lagu talagalay nolosha marka waxa weeye ano ma taqaanay qoysas badan baad maanta arkaysaa oo aan ahayn kuwa farxad ku wada nool kuwa ma taqaanay ma sha Allah noloshii loo baahnaa ku wada nool marka waxa weeye barnaamijyo noocaas ah oo soo wada bulshada waan ugu bashaareynaya rooda heer nooc doonaysaa mustaqbalka gaadho والله مستقبل كوحن دونيا إن شاء الله تعالى وقرشة يقولتها إن النقضة إليس بالشدة كده موضة أنت كران كيا إن فربضنا عن صاروا بالشو ما تقانا مسكح ذا يو عقلي جماشة إن فربضنا كده داشة تسأل ترى دتك أردن أنت قف نلاش النال أو ما تقانا حق لا شقيسته وعلى دتك والله labadaasina waxa weeye waa muruq maal iyo maskax maal marka waxa weeye insha Allah taala inaan ku biiro dadka maskax maalka oo in fara badan bulshada ma taqaanay dhinaca maskaxda kor u qaada ayaan ratiinaya hamigeyga ugu weyn waa ka dhalinyarada gobolka Sanaag sax waa kuwa ka reeban dhalinyarada kale ee Soomaaliland dhigooda gobolada kale Soomaaliland sax waxaana la oran karaa waxay dhaxleen aafooyinka balwada iyo taariibka sax maxaad kula talinahay horta taa waxa kalifay warsamow in fara badan dhalinyaradu qofku marka nolosha qorshe ka lahayn in fara badan waxa ka luma ma taqaanay hamigii iyo hiigsigii halku socday ayaa ka lunta markay taasi ka luntana waxa kalifma oo ma taqaanay marka abuurma inuu qofkii niyad jabo oo uu siraahdo dalkan waxba kama qabsan kartid dalkan ma kii lagu tala galay laakiinse Yurub dad baa u xoogsaday dad baa ma taqaanay soo saaray dad baa maanta heer ka gaarsiiyay laakiinse iyadoo ay haystaan dhalinyarada reer Sanaag
mataqaanaa waxyaabihii ugu wanaagsanaa oo ay ka mid tahay khayraadkii ay ka mid tahay mataqaanaa dhulkii dalxiiska maasha Allah aanaynan koobi karin waxaan kula talin lahaa dhalinyarada reer Sanaag inay nimcada dalkooda taala arkaan in fara badan ay ka faa'iideystaan oo mataqaanaa ay iska joojiyaan waxyaabahan mataqaanaa ay ku kalifaya inay tahriibaan oo in fara badan ay ka lumaan nolosha ay ka dhacaan ta keliyaan kula talin lahaa inuu qof walba nimcada dalkiisa arko ta uu ku arki karayaan markuu qofku noqdo qof nolosha himilo kale qof meel u socda sidoo kalena qof qorshe leh ilaahayna uu tala saarto marka qof kasta inuu guuleysanayo oo uu horumarayo baan aaminsanahay taasaan kula talin lahaa dhalinyarada inta halka maanta iga daawanaysa ee uu hadalkaygu gaadhayaba rooda ma jiraan waxaad hibo ama halabuur u haye leedahay kulliba qof kasta waxaan aaminsanahay oo nool oo mataqaanaa bulshadeena ka midaba inuu leeyahay halabuur oo uu hibo leeyahay oo mataqaanaa qof aan hibo lahayn u malayn maayo inuu nolosha jiro kaliya uu qofka aan hibada lahayn waa qofka aan naftiisa garanayn saan aaminsanahay marka waxa weeye qof kasta hibo uu leeyahay hibada aan anigu leeyahay waa xaq qoraanimada oo inta badan mataqaanaa dhalinyarada aan wax ugu gudbiyo hab qoraala in fara badan aan jeclahay inaan taa iyada laftirkeeda aan horumariyo marka insha Allah taala imikana waxaan soo wadaa book ku saabsan dhanka waxbarashada oo imika insha Allah taala sanadkan aan jeclahay inaan soo bandhigo buugaasna waxa la yiraahdaa iftiin wuxuu ku saabsan yahay waxbarashada oo ka hadlaya waxaan qoray waqtigii aan ku sugnaa heerka waxbarashada oo ardaynimada aan ku sugnaa iyo caqabadihii iyo noloshii iyo waxyaabaha aan kala kulmay ayaan ku soo ururiyay marka insha Allah taala buugaasna uu qorsheysan yahay inaan soo bandhigo rooda maadaama aan ku sii siqayno gunti iyo gabagabadii barnaamijkeena oo aad toddobaadkani marti noogu ahayd ma jiraan cid aad salaamayso iyo sidoo kale wax tala iyo tusaale ah oo aad siinayso dhalinyarada gobolka Sanaag waxaan jeclaa inaan dhalinyarada aan kula taliyo marka ugu horeysa in qof kasta oo nolosha mataqaanaa nool inuu bal horta garto waxa adduunka loo keenay sidoo kalena qof kasta oo dhalinyaro ah waxaan kula talin lahaa oo aan halka uga gudbin lahaa inuu ka faa'iideysto waqtigiisa sidoo kalena waxaan kula talin lahaa qof kasta oo dhalinyaro ah intaad caafimaadka qabtid inuu ka faa'iideysto caafimaadkiisa sidoo kale waxaan kula talin lahaa dhalinyarada iyaguna halka iga daawanaysa intaad mataqaanaa maskaxdu aanay wali ku daciifin oo mataqaanaa aanad gaboobin inaad ka faa'iideysatid dhalinyaranimadaada inta markaan kula taliyo waxaan halka ka salaami lahaa mataqaanaa horta markay salaan noqoto horta aad bay u weyn tahay kelmadaasi oo mataqaanaa waxa laga yaabaa inaan dad allaawo in fara badan dadkii aan hilmaamo marka waxaan oran lahaa horta qof kasta oo halka iga daawanaya dhammaantiin horta daraale baan idin jeclahay inta mataqaanaa jecel samaha inta markaan ka imaado waxaan salaami lahaa marka ugu horeysa oo mataqaanaa aan ku bilaabi lahaa marka ugu horeysa Ilaahay baan u mahadcelinay inoo fududeeyay barnaamijkan inoona suurtageliyay inaynu halkan madashan quruxda badan aynu isugu nimaadno hotel Cadami aan maanta ku sugannahay aynu ku qabanay mataqaanaa barnaamijkan inta markaan ka imaado waxaan salaami lahaa hooyada qaali Sare Saalax Ismaan sidoo kale walaalahay baan salaami lahaa Hodan Xaawo iyo walaalahay ayaan si guud u salaami lahaa asxaabtayda iyaguna qaaliga baan salaami lahaa iyo inta ku xidhan barnaamijyadayda jecel la horumarka jecel inay guuleystaan si guud baan idin salaamay waxaan idin leeyahay markasta guuleysta markastana horumara sidoo kale waxaan kaga tagi lahaa dhalinyarada waa inaad noqotaan mataqaanaa maskaxmaal sidoo kalena waxaan oran lahaa gabagabadii barnaamijka qof walba halka iga daawanaya horumari naftaada aad baad u mahadsantihiin dhamaantiinba daawadayaal waxaa intaasi inoogu eeg barnaamijkan gaarka ah oo ay toddobaadkani marti inoogu ahayd qoraarooda Cawil Cilmi goobtani aadka u quruxda badan aan u mahad celinayno waa Cadami Hotel barnaamijkan waxaa idin socodsiinaya anigoo ah Warsame Kaafi Cabdirashiid Aadan waa kamaradii Xasan Roore iyo sidoo kale editing iyo farsamadii quruxda badnayd ee Xasan Roore intaan barnaamij la mid ah ku kulmi doonana waxaan idinkaga tageynaa sidaas iyo amaanaha aad baad u mahadsantahay